madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warqad qoraal oo u diray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu kaga hadlay fursadaha kala duwan ee Mareykanku uu ka faa'iidi karo haddii cilaaqaad toos ah uu la yeesho Soomaaliland. qoraalka madaxweyne Muuse Biixi oo lagu faafiyay wargeyska toddobaadlaha ee Newsweek ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka caawin karto dalalka dimuqraadiga ee Mareykanku uu ka mid yahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan gobolka iyo guud ahaan mandaqadaha muhiimka kuwaas haddii aan si degdeg ah xal waara loogu helin carqalad ku noqonaya danaha istiraatijiyadeed ee ay wadaagaan dalalka dimuqraadiga ah. qoraalka madaxweynaha waxa lagu sheegay in dhibaatooyinka ay iska kaashan karaan Soomaaliland iyo dalalka dimuqraadiga ee Mareykanku uu ka mid yahay waxa ugu horeeya khilaafyada siyaasiga ah, shaqaaqooyinka qoomiyadaha, dagaalada hubaysan iyo colaadaha kale ka aaloosan deegaanada ku yaala gobolka ee xuduudda la leh Soomaaliland. isagoo xusay dhibaatooyinkaasi ay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka rayidka iyo guud ahaan deganaanshaha gobolka oo dhan. madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale tilmaamay dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan gobolka iyo mandaqadaha ku hareeraysan Soomaaliland ay yihiin qaar dhaawac ku keeni kara danaha iyo qiyamka Mareykanku leeyahay, isagoo xusay in arrimahaasi ay yihiin qaar uu og yahay madaxweynaha Mareykanka, taasoo ay caddayn u tahay in madaxweyne Joe Biden uu laba ergay oo gaar ah uu si degdeg ah ugu soo magacaabay gobolka. waxaana madaxweynaha Soomaaliland qoraalkiisa uu ku iftiimiyay in si wax ku ool loo xalliyo dhibaatooyinkaasi oo aanay u baahnayn oo qura diblomaasiyiin ergaa oo la soo magacaabo, balse ay tahay arrintu mid u baahan in Mareykanku uu xulufo iyo saaxiibo la isku halayn karo ku yeesho gobolka Geeska Afrika. waxa kale madaxweyne Muuse Biixi uu ku cadeeyay qoraalka in dawladda Soomaaliland oo kaashanaysa diblomaasiyiinteedu ay soo dhaweynayso fursadaha muuqda ee ah in la helo dhinacyo cusub oo Soomaaliland ay iska kaashan karaan dalka Mareykanka, taasoo gacan ka geysanaysa in laga adkaado kooxaha xagjirka lana soo afjaro dagaalada ka taagan dalka Yemen, isla markaasina laga wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa rabshadaha ka socda Itoobiya iyo in la wada ilaaliyo marinbiyoodka muhiimka ee gacanka cadmeed iyo badda cas oo ah mid ay isku halayn karaan inay isticmaalaan ganacsatada wax dhoofisa ee Mareykanka iyo ciidamada badda ee Mareykankuba. geesta kale waxa uu madaxweyne Muuse Biixi tilmaamay in deganaansho la'aanta ka taagan gacanka cadan iyo saldhigyada militariga Shiinuhu uu ku leeyahay jaarka Soomaaliland ay carqalad ku leeyihiin danaha guud ee ay wadaagaan Soomaaliland iyo Mareykanku, loona baahan yahay in arrintaasi laga yeesho qorshe lagaga samata bixi karo oo ah mid u yaala dawladaha Soomaaliland iyo Mareykanka. qoraalka uu madaxweyne Muuse Biixi u diray dawladda Mareykanka waxa kale oo uu ku soo bandhigay fursadaha dhaqaale ee labada dhinac ay iska kaashan karaan, isagoo xusay in arrintaasi ay qayb ka tahay sababaha loo maalgeliyay loona casriyeeyay dekada Berbera, isla markaasina loo dhisayo jidka isku socodka ganacsiga ee Soomaaliland ku xidhaya dalalka dariska ee aan badaha lahayn. waxaana uu sheegay in wadamada Geeska Afrika iyo guud ahaan Afrikaba ay leeyihiin khayraad dihin oo wali aan daboolka laga furin, loona baahan yahay in arrintaasi laga wada faa'iideysto. waxa madaxweyne Muuse Biixi uu soo jeediyay in iskaashiga Mareykanka iyo maalgelin lagu sameeyo suuqa dihin ay keenayaan horumar ku salaysan danaha dhaqaale ee waxtarka u yeelanaya cid walba marka laga reebo kuwa dhex tiimbanaya deymaha xad dhaafka ah ee la dhaafsaday maalgelinta khayraadkooda dihin. madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku soo qaatay xiriirka adag ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Taiwan oo sidoo kale saaxiib iyo xulufo muhiim ah la Soomaaliland, waxaana uu xusay in fursadaha iyo danaha Mareykanku ka leeyahay Taiwan qaar la midina ay ugu diyaarsan yihiin Soomaaliland, iyadoo iskaashigaasina uu noqon doono mid faa'iido u leh dimuqraadiyadda iyo hirgelinta xorriyadda asaasiga ah ee xaq ay u leeyihiin muwaadiniinta dalalka xorta ah. ugu dambeyn waxa qoraalkani madaxweynuhu uu kaga hadlay taariikhda iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee laga hirgeliyay Soomaaliland iyo doorashooyinkii xorta ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay qabsoomay, isagoo qoraalka uu diray madaxweynaha Mareykanka ku xusay in madaxweyne Muuse Biixi uu yahay madaxweynihii shanaad ee si xor loogu doortay dalka Soomaaliland, isla markaasi uu isna xilka si rasmi ah ugu banayn doono marka ay timaado in la soo doorto madaxweynaha lixaad ee uu yeesho wadanka Soomaaliland, kaasoo uu xilka ugu wareejin doono si la mid ah sidii uu xilka ula wareegay, isagoo xusay in Soomaaliland ay tahay dal muddo 30 sano xora oo madax bannaan kuna tallaabsaday horumar dhinacyo kala duwan iyadoo cidna aan ka helin wax taageero dibadeeda, diyaarna ah inay la shaqayso dalalka dimuqraadiga ah ee laga tixgeliyo xorriyadka iyo xuquuqaha asaasiga ah. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maaysa xaajo tiyara iskuulkii maad geystay hay charger maaysa
charger ma haysaa charger casuumadii baan joogaa casuumadii sug halo charger ma haysaan wanniyo maxaa kaa qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waadna weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin